daadadka duufaanada kuleylada ayaxa cudurrada faafa iyo argagixisada qalqalgelinaysa amniga dadka shacabka ah waxaasoo dhan ay ku howlan yihiin abuuritaanka hoos u dhacay kaabayaashii dhaqaalaha khayraadkiina u yaraaday gudoominta goobaha shacabka ku nugul ay ku nool yihiin iyo dib u dhaca horumarka waqtigan aan joogno sidaan hore u sheegnay mar kalena aan ku celinayno 2 milyan iyo bar ruux oo Soomaaliya ayaa u nugul waxyaabahaas wajahaya cunugyarida biyo la'aanta ayaxa iyo caabuqan waxaana loogu magacaabaa wejiga saddexaad ee IBC-da xaaladda bini'aadanimo ay jirto oo soo korortay oo sii kordhisay 2021 sida aad la socotaan roobabkii oo yaraaday da'distoodii oo la soo dhaafay waxa oonu goos ahaan hadda aan filaynaa in ay sii wajihi doonaan dadkeena waana sababta keentay cunto yarida iyo biyo la'aanta ay u dheer tahay saameynta dhaqaale ee uu sameeyay caabuqa COVID-19-ka xaaladaha abaaro oo daran ayaa laga sheegayaa gobolka Gado iyo deegaano hoostaga gobolka dowlad goboleedka Jubbaland Hirshabeelle Galmudug Puntland Koonfur Galbeed iyo gobolada waqooyi Somaliland laga bilaabo Febraayo waxaa korortay faafidda caabuqan COVID-19-ka oo aad ogtihiin in ay soo bandhigto wasaaradda caafimaadka si maalinle ah xaaladda abaaraha waxay sii cakiraysaa arrimaha bini'aadanimo qiyaastii 5.9 milyan oo qof oo dadkeena ah oo u baahan gargaar bini'aadanimo arrimahan waxaa ugu wacan dhibaatada cimilada isbedbedelkeeda oo soo noqonayo xasiloonida kororka dhaqaale ee muddada dheer waxaan u baahan tahay in loo midoobo iyadoo xilligan tallaabooyinka la qaadayo waqtigan waxaa lagama maarmaan ah midnimo qaran iyo mid caalami in aan u yeelano una naxno dadkeena Soomaaliyeed waxaan qiraynaa horumar la taaban karo in laga sameeyay sanadihii la soo dhaafay iyo qataraha hadda la soo darsayo dhanka cimilada oo guulo laga gaaray waxaana garwaaqsanahay saameynta naxdimahan faraha badan ee soo noqonayo sidaas darteed waxaan ballan qaadaynaa inaan sii wadno dadaalada lagu yareynayo dhibaatada ka dhalan karta arrimaha cimilada abaaraha iyo waxyaabaha daadadka iyo fatahaadaha ay ka dhalan karaan waxyaabahaas aan mudnaanta siinayno isla markaana aan aqoonsanahay waa baahida degdega ah ee loo qabo in loo sameeyo waxyaabaha aan awoodno si loo badbaadiyo nolosha dadkeena waxaan bogaadinayaa dadaalka wasaaradda iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ugu jiro howlaha gurmadka degdega ah sidoo kale dowlad goboleedyada oo wada shaqaynta leenahay iyo gobolka Banaadir si aan uga qayb qaadano gurmadka socda iyadoo aan la wiiqayn wax ka qabashada abaaraha taagan mas'uuliyadda ficilkeeda waxay ay qusaysaa dhammaan jiheeyayaasha dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dowladaha xubnaha ka ah gobolka Banaadir odayaasha hogaamiyaasha maxalliga ah culimada mas'uuliyadda ficiliyan waxay wada qusaysaa jilayaasha oo kala ah dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka gobolka Banaadir odayaasha hogaamiyaasha maxalliga ah culimada bulshada rayidka ganacsatada qurba joogta Soomaaliyeed iyo howlwadaagayaasha hay'adaha caalamiga ah iyo dhammaan saaxiibada Soomaaliya waxa ay ka qayb yihiin baaqan wadajirka ah oo aan u dirayno waxaana lagama maarmaan ah in la qaado tallaabooyin degdeg ah
waana in laga fiirsadaa isla markaana aan hirgelinayno farsamo ahaan fududaynta bixinta gargaarka oo ay jiraan in aan soo dedejinno dhoofinta iyo sahayda gargaarka muhiimadda ay sidoo kale xawaaladaha in ay si kumeel gaar ah ay u xadidaan shuruudaha xafiisyadooda bixinta amniga iyo kordhinta taageerada saadka tallaabada dheeriga ah waxqabashada iyo hagaajinta haddii ay suurtagal tahay barnaamijyada mashaariicda jira waxaa ka hadli doona wasiirka maaliyadda waxaan si gaar ah baaqan doorka aan u saaraynaa hay-adaha qaramada midoobay NGO-yada caalamiga ah iyo kuwa waddanigaba ay bixiyaan sida naf badbaadinta leh mas-uuliyadda warbaahinta madaxa bannaan ee ah hagaha firfircoon ee qayb libaax ka qaatay sidii dadkaas Soomaaliyeed loo badbaadin lahaa waa lagama maarmaan inaan bixinno warar hufan oo joogto ah kuna saabsan xaaladaha bini'aadanimo ee hadda jira wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka waxay si toos ah guddigan ula shaqaysaa gaar ahaanna wasaaradda warfaafinta aan uga mahadcelinayo walaalkay wasiir Cismaan Dubbe iyo wasaaraddiisa si aan u gaarno xaaladaha iyo taageeridda wacyigelinta gaarsiinta sahayda iyo soo celinta suuqyada wax ku oolka ah gaarsiinta kuwa nugul muhiimadda ay leedahay qurba joogta Soomaaliyeed oo aan ku boorinayno in ay kor u qaadaan lacagaha dhaqaale ee ay dadkooda u soo dirayaan annagoo og in ay ayagu laftirkooda wajahayaan xaaladaha hoos u dhaca dhaqaale ee caabuqa COVID-19 uu ku sameeyay dunida xarunta iyo wasaaraddaba waxaan ra'iisul wasaaraha iyo aniga ka wasiir ahaanba aan faraynaa sidii ay door muhiim ah uga qaadan lahaayeen dhamaystirka xarunta gurmadka degdega ah taasoo fududayn doonto iyo in isla xisaabtan dhanba ah aan la galno waxbixinta ficilka ee taageerada bini'aadanimo ugu dambeyn waxaan u ololeynaynaa taageero dheeri ah in la siiyo maalgashiga muddada dheer si loo dhiso adkaysi yeelashada xaaladda isbeddelka cimilada waa lagama maarmaan inaan wadajir uga jawaabno xaaladahan waana inaan abuurno jawi barwaaqo iyo nabadgelyo jiilka dambe ay ku noolaadaan wabilaahi tawfiiq gudoomiyaha guddiga iyaga بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وزير دبي وزير خديجة في وضع الصوماليات كان النبي الحسنيات بعض الصحافة ورنت سيف عنوس الإسكسور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت وزير خديجة ومسؤول كأر وزارة arrimahan si toos ah loo sii dhaagaan iyo wasiir Dubbe ayaa igu horreeyey oo runtii wax badan sheegay gaar ahaan Khadiija waxay aad u dhex gashay dhibaatooyinka ay leeyihiin baaxadday leeyihiin iyo waxyaalaha aan doonaynay laga waa baraarujin iyo warisdhaafsi loo baahan yahay mar walba inaynu isku nimaadno oo dadka Soomaaliyeed uga warranno halkay wax taageer yihiin haddaan dib ugu soo noqdo anigu muhiimadda halkan aan u taageera waxaa weeye arrimaha ina haystee dhibaatooyinka ee maanta biyo la-aantu ugu badan tahay oo cunto yaraanta ku xili doonto ama ay inaba saaran tahay cunto yaraanta dadka iyo xooluhuba ay saaran yihiin waddankan in badan baan soo joognaa calaamaadka waa naqaanaa siday iskugu xixigaanna way naga dhaadhacsan tahay waan ku soo koray taasaan ku soo koray marka saynkaan naqaana marka uu da-ayo calaamadaan naqaana marka uu da-ayo jilaalkana calaamadiisaan naqaanaa abaarna calaamadaheedaan naqaanaa iyo waxyaalaha isku xiga ayaa naqaana haddaan uu kuman khabiirkuna waxaasaan ku intaasi dowladda Soomaaliyeed
waxay qayb weyn bay ka qaadanaysaa arrintaasi sida looga qaban lahaa waxaan doonaynaa inaan isla soconno inaan qayladhaanta hadalkan sheegaya waa hadal hore waad u maqasheen intii awaarihii hore aad maqli jirteen soomaalidu qayladhaan bay jirtaa dowladda maxaa madaxa iyaga waxa ku jira waxa weeyaan qayladhaanta baynaan gabayna iska dhaafo waddankan inuu gaadho meel ay isku fillaan adduunyada kaleba abaaraha ka dhacay adduunyada kaleba biyo-la-aan baa ka dhacday innaga teenna abaarteenu yani dadkii bay leenaysaa xoolihii bay leenaysaa xol bay leenaysaa dalmalaawi iyo mosambiqii abaar baa ka dhacay werigaa maqlin waana ka dhacay laakiin innagu adeer waynaan isku tashanayn marka halkan abaartan joogta maanta ayaa focuskeenu saaran yahay waddeennuna saaran tahay in dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada haysato loo gurmado loo kaco weliba innagu aanu kacno u gurmayno dadka Soomaaliyeed ee jooga iyo kuwa dibadda jooga ama NGO ha noqdaan ama individuals ha noqdaan in loo kaco oo loo gurmado oo aanay abaartaasi dadka lahayn iyo xoolahooda ayaan doonaynaa inay soo gaarsiiyo baahida loo qabo in qof waliba sara karo dowladda Soomaaliyeed of course ayadaa dadka ka mas-uula haqranna mayso waxba haqran mayso ama wixii jeebkeeda ku jiray ha noqoto ama qayladhaan adduunka loo diray ha noqoto haqran mayso qayladhaan waan diray ishooyinkaas oo dhan mas-uul baan kuga jiraa adduunyada United Nations sida khadiija sheegtay qaybaha kala duwan waa lala hadlay wixii ay kala galeen ee ay marka hore wada soo jeediyeen baa soo dedejiyey waxaa laga nidaamiyeysaa iyo sanado ayaa loogu talagalaa ilaa iyo sanado laga sugayna maanta keena ayaanu ku heshiinay oo sidaa ku heshiinay World Bank mashaariicdii sii jirtay ee arrimaha loogu talagalay laakiin loogu talagalay waqti dheer inay qaadato ayaa waxaan ku heshiinay muxuu ahayaa degdeg loo hay inta loo soo ka baxay Soomaaliya inta loo soo ka baxay macnaheedu yahay maanta haddaan wax qabo ina bari cid helaysa waan isku wada raacnay arrinta ayada dowladda Soomaaliya wixii jeebkeeda ku jira of course waxa Soomaaliya leeyahay ayadana hafran mayno marka waxaan ku soo gabagabeynayaa waxa weeye dhowr dhibaato iyo markii ka sheegay wada ilaahay waxaan baryaynaa inay qulubteenu isku timaado oo jahaysan inaan jahaysan haddaan jahaysan weyno waa laynoo jahaynayaa waddankana waa la iska qaadan qoosho ya marka waxaa loo baahan yahay marka inaan gacmaha isqabsanno inaan gurmadno gurmadkaa maanta dhibaatadaa jirtana wax laga qabto ka wada qabanno annagoo annagu dowladda gurmad ka tahay si aanay inoogu soo noqonna hadday soo noqotana aynaan cid kale u qaybsanayn keligooda qabno mashaariic baa jirta imika socota mashaariicdaasoo loogu talagalay in fatahaadaha wax laga qabto in abaaraha wax laga qabto biyaha badda gelaya in dhulka la joojiyo oo meel walba la geeyo wax diidayaana ma jiraan waxay tahay un visionkeena iyo maskaxdeena inay halkaa saarato wixii loo baahan yahayna keligooda la qabto biyaha badda gelaya la joojiyo biyalaan waxay tahay oo maxay biyuhu badda u gelayaan isweydiiya hadday biyalaanayna hayso biyuhu badda maxay u gelayaan وسؤال وياه هاي اللي جت جواب وتذكر الصوم على كده ولا هذا لو إنه جت جواب اللي جت جواب ماي تطبع عندها قاية بيها بتجريه ودكتور نوع عرض بيها بتجريه حق سرانة بيلان مركا جلال فربضن أو صوماليا السن أو الدولة السن أو إسراع السن أو ملك قطم على الجنوب هي ثاني دولة وهي أسوة جدا ديارنا ويوتاين هرتا إن شاء الله تعالى وكبر ليسود الدباتون كاسورا كورونا فيروس كما يسوون دبي شيء فانك أي حيوان دبي شيء ما كانوا كبار هيستوري كان طبعا دبي شيء وحاسوا مصيا مكيليا إنه هبسدي لذلك كيني أهمين هو سكيل الجنسية وحامر كالسوالة كان حلا بساستا وحامر كالسوالة بساستا بالغا لكن الله ينوجه يا تذكر الصوماليين كل ولا يهلي تدفع بدن وقيل يسروا دنيا ودك دباتة إلى الساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ بهالسيد المزيكا السيد الثلاث حافظنا ومع صنعي وحنوم هذا النيابة كلا
wasiir Khadiijo si fiican bay idinku sheegtay xaaladdu sida ay tahay iyo dalka iyo abaaruhu halka ay marayaan iyadoo ay jiraan dhibaatooyin kale oo ah corona iyo ayax iyo xaalado kale haddana tan abaarta ee maanta dadkii biyalaan u dhimanayaan si fiican bay wasiir Khadiijo Maxamed Diiriye u sharxday wasiirka maaliyadduna wuxuu inoo soo koobay baaqyadii dawladdu dartay in laga soo jawaabay wasaaradda maaliyaddu wixii iyo xukuumaddu wixii waajibkeeda ahaa way ka gudatay shaqadan ay qabanayso World Bank uu ka soo jawaabay baaqii la diray maalintii dhaweyto waxaanay degdeg gelinayaan in hawshan gurmadka abaaraha ka qayb qaataan OCHA oo United Nationska u qaabilsan arrimaha gargaarka iyaguna waa ka soo jawaabeen OIC iyo hay'adihii kale islaamiga ahna waa ka soo jawaabeen ilaahay waxaan ka rajaynaynaa labada bilood Maars iyo Abriil in wax gurmad macna leh uu gaaro waxa kale iyaguna inala jooga agaasimi guud ee wasaaradda gargaarka iyo Cabdishakuur Saami oo ka socda stroke tugada hay'ad la yiraahdo oo ilaa 200 oo booyadood biyaha geysay gobolka Gado aad baan ugu mahad celinaynaa waa dad Soomaaliyeed oo mainly jooga North America oo abaaraha ka qayb qaata iminka Gado shaqo fiican bay ka qabteen haddana waxay ku sii socdaan Togdheer iyo Soolo meel aad looga soo dhibaatooyin badan laga soo sheegay iyagana waa mahad celinaynaa waxaan ku soo gabagabeynaynaa shirkeena jirayd saxaafadda madaxa bannaan inay oo ka socda xafiiska ra'iisul wasaaraha shaqooyinka ugu badan ee coordination kana haya aad iyo aad buu mahadsan yahay saxaafadda qaranka saxaafadda madaxa bannaan dhammaan warbaahintu inay ka qayb qaadato gurmadka ka koofirka iyo ka abaaraha labadaba oo la isu taago badbaadinta dadka waa dadkeenni waa mahadsan yahay wasiir Beyle si fiican buu u dhigay biyo badan baan haysanaa waa ka faa'iideysan doonaa mustaqbalka tusaale ahaan gobolka Gado oo hadda abaarta ugu xun ka jirto 6 degmo ee gobolka Gado 5 ka mid ah waxa mara webi 5 degmo ka mid ah webi baa mara ayl waaq mooyaane 5 kale marka waa in laga faa'iideysto oo biyaha laga faa'iideysto si aan marka u dhicin aad iyo aad baa mahadsantihiin waa Maarso waa kulayl waana ogahay inaad wax taagantihiin waxaan idin mahad celinayaa thank you very much aad baa mahadsantihiin